السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمانتينا ميلول بعد جوجتان كسو دواذا موخالك مانتا إن شاء الله ماليمها سو صعودة channelka waxaan kusoo dari doonaa muuqaalo kala duwan macnaha channelka kuma ekaanayo qisooyinka kaliya waxaan soo qaadanaynaa mowduucyo kala duwan waxaana ka mid ah muuqaalkan ama mowduuca maanta wuxuu ka hadlaa metaverse laga yaabo inaad maqashay maalmihii la soo dhaafay ama bilooyinkii la soo dhaafay magacan ama ereygan marka sida darteed uma baahno faahfaahin dheer oo ku saabsan metaverse laakiin waxaan ku soo bandhigaa waxyaabaha ugu yaabka badnaa oo ka dhacay metaverse caalamka metaverse daawasho wacan metaverse wuxuu ka mid yahay mowduucyada loogu hadlahaynta badan dhanka teknolojiyada metaverse waa platform oo samaysay shirkadda Meta ee loo yaqaanay markii hore Facebook laakiin waxaa jiray shirkado kale kaga horeeyay oo magac kale u yaqaaneen metaverse shirkadahaasna waxaa ka mid ah Nvidia oo platformkeedu yahay Omniverse run ahaantii ma jiro tacriif ama qeexitaan dhab ah loo hayo metaverse laakiin haddii aan soo koobno waa goob ka mid ah internetka oo lagu diyaariyay wax walbo maalinle aan u isticmaalno ukiyaalo ayaad xiranaysaa kadib internetka ama game wax u eg meel u eg ayaad dhaxgalaysaa wax kasta ukiyaalahaas ayaad ka dhex daawan kartaa macnaha waxaad dareemaysaa in aad meesha dhex joogtid game socdo adigoo gashay oo kale waxaan dhihi karnaa waa caalam khayaali oo aad dhexgali kartid adigoo isticmaalayo ukiyaalaha midda kale waxaa loo sameeyey in uu fududeeyo adeegyada ukiyaalahaas in aad xiratid kadib dukaamanka iyo shirkadaha dukaamanka meesha ku dhex furtay in aad wareegtid aad kasoo adeegatid kadib alaabta guriga lagu keeno ayadoo run ah laakiin taas weli lama gaarin hadda weli waxaan ku jirnaa alaabta gado ee waxaa lagu geenaa guriga aad meesha ku gadatay guriga khayaaliga aad meesha ku gadatay ama kabaha khayaaliga ah aad meesha ku gadatay ayaad xiranaysaa dabcan adiga waxaad leedahay qof ama sanam maan dhehayna ma ogi wax jini ah waxaa la character ayaad leedahay gamekaas ku jiro ama caalamkaas ku jiro marka characterkaas ayaa wax walba ugadi kartaa waana lacag oo been ah ma ahan lacag run caalamkaas waxaa ku jiro ama waxaa ku yaalo dukaaman caan ah dukaamankaasna waxaa ka mid ah dukaanka shirkadda Nike ukiyaalahaas adigoo xiran gurigaada iska joogtid ayaad waxaad aadi kartaa dukaankaas oo meesha ku dhex yaalo metaverse ku dhex yaalo ayaad kabo ka soo gadan kartaa kabahaasna waxaad u xiri kartaa characterka meesha ku saaran ama meesha kugu jiro metaverse waxyaabaha loo sameeyay waxaa ka mid ah beero dukaaman hoteelo meelo disco meelo oo casino qamaarka lagu ciyaaro sidoo kale waxaad sameyn kartaa waxaad la fadhiisan kartaa asxaab ada meesha ku baratay saaxiibo ada meesha ku baratay adigoo gurigaada joogo hadalka aan ku soo gaabiyo ukiyaalahaas marka aad xiratid khalaas caalam kale ayaad gashay characterkaas ayaa ku soconayo characterkaas ayaad controli kartaa oo meel walba aadi karo caalam kale adduunyo ayuu ku jiraa calaa ay taxaal shanta waxyaabood oo ugu yaabka badan oo ka dhacay metaverse ayaan ka hadli doonaa dad isku guursaday metaverse-ka dhexdiisa bishii Febraayo sanadka la soo dhaafay lamaana ka soo jeedo dalka Hindiya ayaa metaverse-ka isku guursaday metaverse-ka ayaa waxay ku sameysteen aroos ayaa ka dhacay meesha wuxuuna ahaa arooskii ugu horeeyay labadan qof waxay ahaayeen lamaano ka soo jeedo dalka Hindiya koonfurta dalka Hindiya wiilku waxa la yiraahdaa Danish gabadhana magaceed waa kana magac adag way akhriso dadka ka soo qayb galay arooskaas guryahood ay joogeen yani ma jirto waa baxa zaban socona bariis iyo hilib ma jirto ukiyaalihiisu xirana bas kursigu ku fadhiya gurigiisu jooga ama wadan kale ayuu jooga ukiyaalahaas ayuu xirana arooskii meesha ayuu ka daawana meesha ayuu ku dhex jiraa characterkiisa jooga meesha arooska gintiga asoo leh caadi waa dareemi karaa wax cajiib ah ama wax macquul ahayn ay kula tahay laakiin way dhacday bilooyin kadib dad kale ayaa ku deystay aroos meesha ka dhigay metaverse-ka ayaa aroos kale ka dhacay ukiyaalahood ay soo xiranayaan arooskii ayaa laga soo qayb galaa mid kale waxaa jirto metaverse waxaa lagu dhigi karaa xaflado sida xafladaha dhalashada iyo afartan baxa caruurta dhalatay iyo xaflado kale haddaa iskuulka jaamacadda ka qalan jibisid meesha ayaa xaflad ku samaysan kartaa mid kale mustaqbalka meeshaas ama metaverse
waxay noqon doontaa meel aad ka shaqayn kartid. Anaka yimkin laga yaabo inaad duqowna ma ka gaarayno teknolojiyadan, laakiin waxay noqonaysaa meel laga shaqaysan karo. Laga yaabo inaad is leedahay waxaan waa waali ama macquul ma ahan. 20 sano ka hor soo xasuuso 3310 telefoonka xasuustaa. yaa islahaa telefoonka waagaas markuu soo baxay, yaa islahaa telefoon ayaa soo baxi doono bas ku raacaysid, biib lacag ku bixinaysid, biib internetka online wax u gadanaysid, adoo telefoonka wadatid gurigaada fadhisid, dhag surwaal soo gadatay, kabo ayaa soo gadatay. taas ayaan gaaraynaa. yaa islahaa 20 sano ka hor, yaa islahaa telefoonkan ayaa wadada ku tilmaamayo sida Google Map, yaa islahaa telefoonkan ayaa lacag ku dirsan kartaa. marka metaverse waxaad u bixin kartaa 3310 2020 2040 lama ogo sida uu noqon doono. iibsashada dhulka taasna way dhacday sanadkii 2017 shirkad ay waxay meesha ku qabatay bandhigaas wuxuu ahaa dhul ayaa la gaday, dhul ka tirsan metaverse ayaa bandhigaas lagu gaday. qiimihiisna wuxuu ahaa $20. dhulkii $20 ayuu joogay. 3 sano kadib 2020 dhulka metaverse ku yaalo wuxuu joogaa $15,000. waa adigoo dhul caadi banaanka xaafadda Soomaaliya adigoo dhulku gadanaysid oo kale. mid kale oo ka yaabinayso, jagada ugu qaalisan ama ugu lacagta badnayd waxaa lagu gaday $4,300,000. waxaana gatay shirkad la yiraahdo Republic Realm. waa shirkad ka shaqeyso maalgashiga. run ahaantii waa sheeko يعني وأرين عجيبة. ميل أدجوكتي ماشو كيالا مؤجد إنترنت كده سواي وكيالها مركا حيرتي والكاضي وأركي والكاس أي واحد قسمة سنكرتا يعني وادسي كرتا ماشي لحديت وحجوج الشركة وحكون لسه شركتها أو هذا بنانك عالم كان جوجان ماهن لكن ضد كمبيوتر قداشيس فديو واي لابتوبات قداشوت فديان أيجا سمينايو لكن وإن العقب بحسها سيدي أو عالم كاس إنا واحد يقول لسه وشيء دير وعجيب على حد ما فهمينه قف ويل هذا دهديد تليفون كان أيا واحد كست كسميسان كرا وكل يابا تاسنه waxaa dhici doonto anaga ayaan ugu dhici doonto 40 sano kadib insha Allah ilaahay cumri dheer haduu nasiiyo taasan la yaabi doonaa yani waxyaabahan wax ka daran ayaa la yaabi doonaa fanaan kamid ah fanaanada dalka Mareykanka oo la yiraahdo Snoop Dogg ayaa meesha hees ku sameeyay metaverse ayuu hees ku sameeyay fanaankan meesha metaverse wuxuu ku leeyahay qasri mid kale fanaankan wuxuu kamid yahay dadka taageero isticmaalka lacagaha oo bitcoinska sidoo kale wuxuu kamid ahaa dadka ugu horeeyo oo isticmaalay metaverse ayuu wuxuu ku leeyahay qasri aad u qalabeysan qasrigiisna waxa la yiraahdaa Snopverse run ahaantii aan qasrigiisa ma arkin qaabku u yaalo sawir kaliya aan arkay laakiin meesha waxa ku qorneed qasrigiisa waxaad ka heli kartaa wax walba aad ka heli kartid qasriyada madaxda qasrigaas oo fanaankaas iska leh ayaa waxa lagu dhisay $300,000 dhul ayuu gatay $20 markuu joogay kadib buu dhisay meeqa lagu dhisay $300,000 dhulka intuu ku yaalaa وكيالهاس dhaxdiisu ku yaala fanaankan oo gurigaas dhistay metaverse ku dhistay hees ayuu soo saaray waatana YouTube karaadi heesta oo arkay gurigiis oo metaverse ku yaala gurigaasna ama qasrigaas uu dhistay maanta qiimihiis waa $4,800,000 haduu uu gadi rabo kiyaalaha xiro soco qasrigiis marka aragtid asaga hadii oo online uu yahay sida WhatsApp oo kale online haduu yahay uu ay qasriga magadi meeqa $4,800,000 lacag run ah way hada aad gadanaysid mid kale waxa jirto alaabo badan aad meesha ka gadan kartid laakiin wax aad taaban kartid malahan kabo dharkaas iyo kabahaas waxa loogu talgalay karakterkaada aad meesha ku leedahay inaad u xirto meeshu ku socdaa asay marka ukiyala gashid meeshu ku soconaa marka dharka inaad ka bedeshid wiigi hal mar inaad dharka ka bedeshid inaad soo gadatid way dharkaas aad taaban karin ayaa waxaad ka bixin kartaa $100 $200 $5,000 $10,000 dhar khayaali ah kadib waa xirey dharkaasna waxa ka gadan kartaa shirkadaha oo caanka ah haduu dukaaman kale meeshaas metaverse waxay ku leeyihiin dukaaman dhar loogu talgalay
karakterka aad meesha ku leedahay. Midda kale shirkadda Rolex oo saacadaha soo saarto meesha Metaverse waxay ku leedahay dukaan. Muddo ka horna saacad ay waxay ku gadday $1,500,000. Sidoo kale waxaa jiro dad alaabo meesha ku gada, alaabahan oo la yiraahdo NFT. Waxay noqon karaan sawir, dhar, surwaal, koofiyad, baaskiil, gaari, dhul, wax kasta. Qiimahoodna waa 3,000, 4,000, 5,000. Kadib dadka way soo sawirinayaan Instagram iyo Snapchat ay soo dhigayaan. Kabahaas aan gatay, Metaverse aan ka gatay, gaarigaas aan gatay, fan bes. Adduunka ma ogid meeshu u socdo wallahi. Mid ugu dambeyso oo la yaabka leh ayaa waxaa ku yaala meesha Metaverse, caalamka Metaverse waxaa ku yaalo shirkadaha caymiska. Shirkadahaas waxay fududeynayaan kala iibiska alaabaha meesha lagu gato. Tusaale ahaan hadda gaari ayaa wadataa, bil walba waxaad bixinay $50. Bil walba $50 caymis ayuu ku jira gaariga. Beri ka maalin gaariga hadduu halaawo ama shil galo, gaariga waa lagu sameynaa ama waa laga bedelaa, waa laga qaadanaa, mid kale ayaa lagu siinaa. Metaverse arrintaas ayaa ka jirto. Gaarigaada hadduu kaa halaabo, kabahaada hadday kaa go'aan, kabaha ma go'ayaan ma ogi. Cala ay taxal shirkadda caymis meeshaasay ku jirtaa. Hadda wax gadanaysid guri hadduu kaa halaawo, wallahi ma ogi. Kabo ayaad gadan rabtaa, shirkadaas caymiska bil walba inaa lacag u bixisid waay. Kabahaas haddii ay ninka ka gadan rabtid meeshaas dhexdeed, okyaalaha dhexdiisa, ayaga ayaa ka mas'uula, ayaga ayaa lacagtaada kuu soo celinaayo, ayaga ayaa ma ogi meesha ma lagu xanuustaa ma ogi, karakterkaada muu xanuunsanaa. sanado kadib waan gaaraynaa, waan arki doonaa, ilaahay cumri dheerna siiyo. Sidoo kale waxaa imaan doona meesha inaad ka dhex shaqaysid, uma baahnid inaa aadid meesha khalaas adigoo meesha okyaalaha adoo joogtid, okyaalahaas gasho saas maanta oo dhan. waxbarashada khalaas waana la tijaabiyey taas. Okyaalo inaad gashatid khalaas waa soconee, galaaska aad joogtaa, maanta gurigaada iska joogtaa, saana ku jirtaa. laakiin okyaalaha dhexdiis ardaydii ayaa kula joogaan, macallinkii wuxuu sharaxoyaa, macallinkii wuu soo gala asagana wuu sharaxa bla taas caalam cajiib. Sidoo kale hadhowdii waxaa imaanayo dhakhaatiirta wax baranayo. Qofka inta adi qaliin ku samee lahayd, si xun u gali lahayd, hadda khalad ku samaysa qofku tijaabinaysid ma soconaysa. laakiin Metaverse okyaalahaas aad xiranaysaa, ma ogi saa u samaynaysid, qaliin ayaad qor kilida kan ka bixi, kilidan kan u xir, qalbiga u jeex, way imaanaya waxaasoo dhan. maalin ayaan soo xasuusan doonaa. cala ay taxal muuqaalka intaasuu ahaa, waa muuqaal caadi ah, tijaabo ma fahantay. waa muuqaalkan waa tijaabo. hadda kadib mawaadiic oo kala duwan ayaan kusoo dari doonaa channelka. marka haddii aad ka heshay comment ka bixi, ra'yigaada ka bixi, muuqaalkana la wadaag asxaabtaada. marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam.